waxaa isbuucan gudihiisa deegaanada koonfurta gobolka Sool ku laabanayay qoysas hore uga soo qaxay kuwaas oo hore uga cararay colaadii ka dhacday deegaanada Dhumay Dharkeengeeye ee Dabataaga. Qoysaskan ayaa ku laabanaya deegaanada hore uga cararay kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay colaadii ku dhex martay maleeshiyad beeleedyo ka soo jeeda deegaankaas. dadkan inay laabtaan ayaa saamaxday markii heshiis la dhex dhigay beelaha Maxamed Garaad iyo Cabdi Garaad oo lagu heshiisiyay caasimadda dowladda Soomaaliya Itoobiya waxaana soo celinta haatan ku jira maamulka gobolka oo hogaamiyo gudoomiye Cabdiqani Maxamuud Jeere waxaana deegaanadaas la geeyay ciidamada Soomaaliland oo ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka inay sugayaan ammaanka deegaanadaas dadka lagu soo celiyay odayaasha labada dhinac iyaguna ku jira celinta dadkaas kuwaasoo kaani fiican ka qaatay sidii dadkaas loogu celin lahaa deegaanadii hore uga kala qaxeen. qaar ka mid odayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in deegaanka ay ka taagan tahay xaalad bini'aadanimo oo u baahan in wax laga qabto. waxyaabaha ugu daran ee haysta dadkan ay u baahan yihiin in loo fidiyo ayaa waxaa ka mid ah hooy xumo, guryo inta badan la gubay. dadkani waxay u baahan yihiin agabyo sida boco, gogon, maacuun, bustayaan ay ka galaan dhaxanta iyo qoraxda iyadoo uu soo food leeyahay raxmaadkii eebe aysan haysan dadkan ku noqday deegaanadoodii dhammaan hoygii ay deganaayeen la gubay oo la baahan in la garab istaago. malaha goobo caafimaad meesha gebi ahaanba ka baxay adeegii bulshada siiba biyaha ayaa ugu waxgaradka deegaanadaas ayaa baaq u diray cid kastoo ka qayb qaadan karta sidii dadkaas ay u soo celiyeen ay u heli lahaayeen adeeg ay ku noolaadaan waxayna ka codsaneen cid kasta inay soo dhisaan xarumihii dumay iskuulada, xarumihii caafimaadka iyo adeegyada kale. walaalahayo hadday maanta yimaadaan iyo hadday berri yimaadaan iyo hadday saa dambe yimaadaan labadaba markastaba gacmo furan baanu ku soo dhaweynay gogoshaana u taala taana waa inay ku qalbisamaadaan nin waliba hantidiisii iyo berkadiisii oo iyadaan nalaba odhan soo dhaweeyaan idin soo dhaweeyaan warbiyihiina cabo oo nala shaahe maanta laba leeyahay soo dhawaada ku dhaa maxaanu ku sharaysanaynaa waxaanu ku sharaysanaa ma jirto saanu idiin soo dhaweyn jirnay iyo si ka badan iyo si ka macaan baanu idinku soo dhaweyn waxaanu maanta wadnaa qof waliba inuu gurigiisii baydkiisii iyo baradiisii ku soo noqdo marka ay dhacdo nabaddu ummaddu ay nabad qaadato heshiis isugu soo noqoto ninka gurigiisii ma guban barkadina kama guban waxay noqonaysaa mar hadduu nabadgelyo qaato oo meeshiisii yimaado baydkiisii yimaado inuu u dhisan yahay oo kale waayo waxaa gubniinsho ah oo colaad ah oo maqnaansho ah kala maqnaanta waxaanu markaa annagu maanta wadnaa qof walba haddii allaba kuuray inuu ku soo noqdo baydkiisii iyo beradiisii waa meesha uu u dhashay iyo meesha uu deegaanka ku lahaa. annagu maanta waxaan u soconnay in qof waliba dib dambe aydan noo odhan odayaashiisuma kaayo keenin qof dambe gurigiisa ka dooni mayno meel dhimanoo aanu tagno mooyaane intaanu marray kii ka maqan isagaa ka maqan annaga nalaga sugi maayo qof walba isagaa gurigiisii u madax bannaan deegaanadii sidii loogu celin lahaa oo nin walba gurigiisii iyo barkadiisii u tegi lahaa oo isagoo nabada nin walba deegaankiisii u tegi lahaa qodobka ugu muhiimsan maanta loo soo ambabaxay waa qodobkaa weeye waxaa weeye sidaa la sheegana waxaan ka soo bilownay dhumayna si wacan baana lagu soo dhoweeyey dadkii dhumay meeshii ka maqnayd iyadoo guuraysa bay magaaladii annagoo joogna soo degtay meheradii bay furteen qadar tarbikaal TV la sanood